warbixin muuqaal oo uu shalay baahiyay telefishinka afka dawladda Itoobiya ku hadlay ATV una muuqatay fariin loo direeyay madaxweynaha Soomaaliya ayaa 24 saac ee la soo dhaafay waxa ay buuq ka dhex abuurtay xiriirka diblomaasiyadda amni iyo kan siyaasadeed ee ay wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya. warbixinta waxaa lagu xusay in Itoobiya ay walaac ka qabto xubno ka tirsan xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh oo lagu tuhunsan yahay inay xumayn karaan xiriirka Addis Ababa iyo Muqdisho. haddaba waxaan dul taagi doonaa dhowr qodob oo muhiim ah oo ku jira warbixinta. warbixinta waxaa lagu baahiyay afka Ingiriisiga waxayna ka baxday qaybta la hadasha adduunweynaha ee telefishinka Itoobiya. si iska cad ma aha warbixin maxalli ah oo loogu talagalay dadka Itoobiyaanka, sababtoo ah waxaa la karayay in warbixinta lagu baahiyo luuqadaha maxalliga ee TV-gu uu ku hadlo oo ka badan 5 luuqadood. dad badan ayaa fariinta u akhriyay inay ku socoto oo kaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya, balse taasi way ka duwan tahay akhrinta ilaa hadda la cabirayo, sababtoo ah waa fariin xujo ku oogida oo ka hor dagaal bilowgiis la ogeysiinaya beesha caalamka, gaar ahaan safaaradaha Addis Ababa ama marmarsiyo lagu raadinayo loolan culus oo siyaasadeed. warbixintu waxa ay sheegtay in tuhun xooggan laga qabo xubno ka tirsan xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh oo xiriir la leh TPLF, xisbiga awoodda badnaa ee muddada dheer ka tiranaya Itoobiya oo hadda dagaal kula jira dawladda federaalka. lama sheegin magacyada dadka tuhunka laga qabo ee ku jira xukuumadda Soomaaliya. wariyuhu waxay carabka ku ballaarisay in walaacu uu ka imaan karo xiriirka uu madaxweyne Xasan Sheikh la lahaa xisbigaas wixii ka horreysay 2018. waxaa kale oo lagu sheegay in dawladda Itoobiya ay heshay caddaymo muujinaya in TPLF qudheedu ay wado inay iska hor keenaan danaha qaran ee Itoobiya iyo Soomaaliya. haddii uu jiray tuhun ah in Xasan Sheikh iyo Itoobiya uusan wanaagsanin xiriirkooda, hadda waa run warkaas. caddaynta cadna waa fariinta Addis Ababa ka timid. nooca jawaabeed ee Soomaaliya ay bixin doonto lama yaqaano. warbixintu waxay su'aal gelisay sida Xasan Sheikh uu aqbali karo codsiga uga imaanaya TPLF. Itoobiya waxay rumaysan tahay in madaxweynaha Soomaaliya uu aqbalin arrintaas qayb ahaan ama gebi ahaanba ayaa warbixinta lagu yiri, balse waxaa la raaciyay cawaaqib xumada ka dhalan karta haddii uu u dhag raariciyo codsiga TPLF. waxaa abuurmi kara ururo argagixiso oo ka halis badan Al-Shabaab ayaa warbixintu si toos ah loogu cadeeyay. muxuu yahay ururka ka halista badan Al-Shabaab ee Itoobiya sheegtay? waa su'aal aan jawaabteeda lagu sheegin warbixinta. intaasi waxaa dheer in warbixinta lagu sheegay in madaxweyne Xasan Sheikh uu lumin karo xulufo muhiim ah oo ku yeelan karo gobolka Geeska Afrika. khubarada diblomaasiyadda iyo amniga ayaa leh waa fariin cad oo muujinaysa in Itoobiya ay ka shaqaynayso sidii taageero xooggan ay u siin lahayd dawlad goboleedyada oo aysan qaarkood durba isku wanaagsanayn Xasan Sheikh. TPLF iyo Al-Shabaab ayaa warbixinta lagu sheegay inay gaareen is-afgarad wadajira inay si wadajira u howlgalaan, taasoo Itoobiya u keentay caddaymo ay ka mid yihiin dagaalkii dhowaan lagu qaaday dhulka Soomaali galbeed. waxaana lagu daray inay jiraan macluumaad ay hayso sirdoonka Itoobiya oo arrintan dah qaadaysa. in la sheego in labadan kooxood oo la kala dagaalamaya dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ay isku mowqif yihiin kuna midaysan yihiin burburinta Itoobiya waa arrin aan sahal ahayn, taasoo Itoobiya loo arko in marmarsiyo uga dhigan karto inay gasho qayb ka mid ah gudaha Soomaaliya. sidoo kale warbixinta waxaa lagu soo bandhigay sida uu wanaagsanaa xiriirkii ka dhaxeeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, taasoo suurtagal ka dhigtay in la iska kaashado la dagaalanka Al-Shabaab iyo ururada kale ee hubaysan ee gobolka ka jira. taas mid la mid ah in laga rabo madaxweynaha cusub ayay warbixintu sheegtay. warbixinta oo muuqaal ahaan aad looga shaqeeyay waxa ay wariyuhu ciwaan uga dhigtay su'aal ku kacaysa $1 milyan oo dollar ee ah madaxweyne Xasan Sheikh xaaladda taagan ma u bedeli karaa taariikh mise samata bixin karaa Soomaaliya. ugu dambayn dawladda federaaliga ee Soomaaliya weli jawaab kama bixin fariinta ka timid dhinaca Addis Ababa. madarasada Daarul Istiqaama oo uga barateen barashada Quraanka Kariimka kana qalin jabisay dafcadii 10aad waxay hadda idin soo kordhisay online academy oo ah qaab casri ah oo uga baran karto Quraanka adigoo jooga gurigaaga meel kasto aad joogto waad noqon kartaa ardayga Daarul Istiqaama. wixii faahfaahintaas dheeriya kala xiriir lambarada iyo gmailada shaashada ku qoran. Daarul Istiqaama daarta cilmiga. warbixin muuqaal oo uu shalay baahiyay telefishinka afka dawladda Itoobiya ku hadlay ATV una muuqatay fariin loo direeyay madaxweynaha Soomaaliya ayaa 24 saac ee la soo dhaafay waxa ay buuq ka dhex abuurtay xiriirka diblomaasiyadda amni iyo kan siyaasadeed ee ay wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya. warbixinta waxaa lagu xusay in Itoobiya ay walaac ka qabto xubno ka tirsan xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh oo lagu tuhunsan yahay inay xumayn karaan xiriirka Addis Ababa iyo Muqdisho. haddaba waxaan dul taagi doonaa dhowr qodob oo muhiim ah
oo ku jiray warbixinta. kow warbixinta waxaa lagu baahiyey afka Ingiriisiga waxayna ka baxday qaybta la hadasha adduunweynaha ee telefishinka Ethiopia. si iska cad ma aha warbixin maxalli ah oo loogu talagalay dadka Etoobiyaanka sababtoo ah waxaa la karayay in warbixinta lagu baahiyo luuqadaha maxalliga ee TV-gu uu ku hadlo oo ka badan 5 luuqadood. dad badan ayaa fariinta u akhriyay inay ku socoto oo kaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya balse taasi way ka duwan tahay akhrinta ilaa hadda la cabirayo sababtoo ah waa fariin xujo ku oogida oo ka hor dagaal bilowgiis la ogeysiinaya beesha caalamka gaar ahaan safaaradaha Addis Ababa ama marmarsiyo lagu raadinayo loolan culus oo siyaasadeed. 2 warbixintu waxa ay sheegtay in tuhun xooggan laga qabo xubno ka tirsan xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh oo xidhi la leh TPLF xisbiga awoodda badnaa ee muddada dheer ka tirinaya Ethiopia oo hadda dagaal kula jira dawladda federaalka. lama sheegin magacyada dadka tuhunka laga qabo ee ku jira xukuumadda Soomaaliya. wariyuhu waxay carabka ku ballaarisay in walaacu uu ka imaan karo xiriirka uu madaxweyne Xasan Sheikh la lahaa xisbigaas wixii ka horeysay 2018. waxa kale oo lagu sheegay in dawladda Ethiopia ay heshay cadeymo muujinaya intii TPLF qudheedu ay wadeen iska hor keenaan danaha qaran ee Ethiopia iyo Soomaaliya. haddii uu jiray tuhun ah in Xasan Sheikh iyo Ethiopia uusan wanaagsaneyn xiriirkooda hadda waa run warkaas. caddaynta cadna waa fariinta Addis Ababa ka timid nooca jawaabeed ee Soomaaliya ay bixin doonto lama yaqaano. 3 warbixintu waxay su'aal gelisay sida Xasan Sheikh uu aqbali karo codsiga uga imaanaya TPLF. Ethiopia waxay rumaysan tahay in madaxweynaha Soomaaliya uu aqbalayn arrintaas qayb ahaan ama gabi ahaanba ayaa warbixinta lagu yiri. balse waxaa la raaciyay cawaaqixumada ka dhalan karta haddii uu u dhag raariciyo codsiga TPLF. waxaa abuurmi kara ururo argagixiso oo ka halis badan Al-Shabaab ayaa warbixintu si toos ah loogu cadeeyay. muxuu yahay ururka ka halista badan Al-Shabaab ee Ethiopia sheegtay? waa su'aal aan jawaabteeda lagu sheegin warbixinta. intaas waxa dheer in warbixinta lagu sheegay in madaxweyne Xasan Sheikh uu lumin karo xulufo muhiim ah oo ku yeelan karo gobolka Geeska Afrika. khubarada diblomaasiyadda iyo amniga ayaa leh waa fariin cad oo muujinaysa in Ethiopia ay ka shaqeynayso sidii taageero xooggan ay u siin lahayd dawlad goboleedyada oo aysan qaarkood durba isku wanaagsanayn Xasan Sheikh. 4 TPLF iyo Al-Shabaab ayaa warbixinta lagu sheegay inay gaareen is-afgarad wadajira inay si wadajira u howlgalaan taasoo Ethiopia u keentay cadeymo ay ka mid yihiin dagaalkii dhawaan lagu qaaday dhulka Soomaali galbeed. waxaana lagu daray inay jiraan macluumaad ay hayso sirdoonka Ethiopia oo arrintan dah qaadaysa. in la sheego in labadan kooxood oo la kala dagaalamaya dawladaha Soomaaliya iyo Ethiopia ay isku mowqif yihiin kuna midaysan yihiin burburinta Ethiopia waa arrin aan sahal ahayn taasoo Ethiopia loo arko in marmarsiyo uga dhigan karto inay gasho qayb ka mid ah gudaha Soomaaliya. 5 sidoo kale warbixinta waxaa lagu soo bandhigay sida uu wanaagsanaa xiriirkii ka dhaxeeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed taasoo suurtagal ka dhigtay in la iska kaashado la dagaalanka Al-Shabaab iyo ururada kale ee hubaysan ee gobolka ka jira. taas mid la mid ah in laga rabo madaxweynaha cusub ayay warbixintu sheegtay. 6 warbixinta oo muuqaal ahaan aad looga shaqeeyay waxa ay wariyuhu ciwaan uga dhigtay su'aal ku kacaysa $1 milyan ee ah madaxweyne Xasan Sheikh xaaladda taagan ma u bedeli karaa taariikh mise samata bixin karaa Soomaaliya. ugu dambayn dawladda federaaliga ee Soomaaliya wali jawaab kama bixin fariinta ka timid dhinaca Addis Ababa. madarasada Darul Istiqama oo uga barateen barashada Quraanka Kariimka kana qalin jabisay dafcadii 10aad waxay hadda idin soo kordhisay online academy oo ah qaab casri ah oo uga baran karto Quraanka adigoo jooga gurigaaga meel kasto aad joogto waad noqon kartaa ardayga Darul Istiqama. wixii faahfaahintaas dheeriya kala xiriir lambarada iyo gmailada shaashada ku qoran. Darul Istiqama daarta cilmiga.